I'm going to college angali جامعة angali and I'm seeing diverse هذا أركويا of people and then whoa, okay, my options are a lot now. I have a lot of I options. have a lot of options. Yeah. معنى and معنى like because there's a lot waxaa arkaysaa Arab community magaalada joogaan Somali waa badan yihiin you know raxamalla ma joogaan you know Somalia jooga waxaa lahaa Europeans or Muslimin community Muslim waa badan yihiin and so collegekan waa isla jooga galaaska waa isla dhigooya so now you're going to say and it's like you will say and then I think you become educated you want to have you expect your expectations were like it's going to become different so because I was going to school I was going to college college university college معنا جامعة كذا so جامعة كسين كجير وحن مسكح ويبدل مسكحه وحن أصلاً okay you're going to college جامعة خف جامعة ذات هاي you have to have someone better than you. Oh, okay. Yeah. Okay. So that's what was my understanding. So قف وحاربتي قف جامعة آذيسي وحاربتي قف أذيك هافي عن أنا جورستي. Yes. معني محكودا قف أذيك هافي عن أنا جورستي. معنى like my husband وحنك فكرة الناس هايستو why at least the college degree أنا هايستو if not better. Oh, okay. So ساسم فكرة. Okay. Like I don't want my husband in on كوينا ذو. I never مجعل أنزاس. But دبعتها جست مريم. قبلها بدن كود محوها هذا دبدان جوجان دبدها كورين بدن كودا. وليش قبلها ما كان في رصيد. قبلها وحبرتين. Yes. قبلها سكولات وذا آذين بدن كودا. Yeah. معناه ويل بدن أو مهر بدن قاروا جيران وسكولات قوي آذان طبعا. ولكن وليش قبلها مركز سكومة دوحتها وحدي كتاب ما بحسابين قريبة بقول كيف لبعتن إيشان ويلش سكولي إنا أذان بقول كدواتن إيشان قبلين سكولي إنا أذان لقيابا so ويل يجبر وجبر يا واحد برشة بالجبر وبتهدي أي كيف فكرته فيري ويلش الصومالي أنا كهالنا جبر وبهدي أي كيف فكرته maybe رنتي حقيقة ما كان هذا ببعت هذا مريم هذا واحد أكد واجسي وحيت الصالة وتهاي waxay ka mid tahay sababaha ay gabdhaha Soomaalida ay u guursadaan ajnabi kaleeta ama dad kaleeta sabab ka mid waa mid ka mid waay aan u maleynayaa maxaa yeelay waxa laga yaabaa inaad saadi sheegtay inay gabadha jaamacadii soo dhameysay waqti badan soo gelisay masters waxbay haysataa kadib ayada ahaan dad qaarkood waxaa jira masters macneen ninkooda waa qofkii jeclaadaan mustaqbal la wadaagayaan waxbarasho waxba kama gelin soo maaha balaakiin dadka badankooda xaqiiqdii marka laga hadlo gabar markii ay wax soo baratay Maryam sheegtay badankood macnee sidaas ku fakiraan dabcan saa u malay soo maaha not all of them kulligood maahan marka waxaa dhacayso wiilashii waxaa laga yaabaa 100 gabdhood inay magaaladan Soomaali joogaan laga yaabo boqol gabdhood magaaladeen ma joogaan magaalada Soomaaliya degan anaga ma joogaan maxaa gaarna boqol gabdhood wagaarina magaalada degan wagaarina boqol iska dhaafe are you serious no boqol iska dhaafe shan gabdhood xitaa ma joogaan Maryam gabdha are you talking about family no meeshan waxa degan 20 family xitaa ma degan magaaladeena waa la badan yahay maxamed wala jooga sax 20 family xamarta 20 in Soomaali ku daroosa ما هذا حسابين كنا حسابين دونا لكن dad badan ma jiraan magaaladan so anyway so marka 100 gabdhood ka soo qaad 100 gabdhood iyo 100 wiil gabdho badan reer ay yeeshteen so family ay xisaabsan yihiin okay gabdho badan marka gabdha ii sheeg muxuu ahaa 100 gabdhood iyo 100 wiil magaaladan wada degan soo maahan 100 gabdhood waxa laga yaabaa 75 oo kamid gabdhahaasi inay jaamacad ka soo baxeen heer jaamacada sare ay joogaan wiilashana 25% ay jaamacad ka soo baxday sidaas daraadeed wiilashii waxa laga yaabaa wiilashii inay gabdhaha inay dhahaan hey aniga waxa u baahanahay qof aniga badankooda taas ku fikirayaan kuwa yar intaysan ka ahayn 70 gabdhihii inay dhahaan aniga qof macnaheedu sida aniga waxbarashada haystaan rabaa qof walba shimbirkiisu la duulaa soo maaha mise waa been waay
shimbiraan ahayn kiis lama duulaayo marka boqolkii gabdhood 75 gabdhood inay dhahaan anaga waxaan rabnaa ama 60 kamid kaba soo qaadba inay dhahaan anaga nin levelkeena rabnaa ama naga sareeyo badankeed saas u dhacdaa wiilashina 25 bisaaba firaaqa ahbo 25 bis awaalkii so marka 60kii gabdhood haddii 25 wiil laga qaato waxa soo haray waa 35 gabdhood banaanka taagan waay soo maahan 35 gabdhood yaa waxay leeyihiin wiilasheena qaarkoodna wax ma baran aniga dooqayga ma ahan wiil Soomaali inaan guursadan waan rabaa marka so maxaan sameeyaa camal marka so saas daraadeed marka waxay fiirinayaan gabdhaha qaarkood option kaleeta banaanka fiirinayaan markaas waxay leeyihiin oo waxaan rabaa maxaa iga gala markaas camal ma fahmino nimankeen wax badan barahooyin laakiin ma jirto midka oo waxaan isla barin oo iskoolka isla joogin jaamacadda markaas lisku jeesahaa yes ha wax qaldana kama jiro laakiin waxaan ka wadaa waxyaalaha qaarkood oo ma arkino oo communitygeena haysto yay ka mid tahay macnaheedu waxyaalaha qaarkood oo dadka banaanka u guursadaan dooq waa jiri karaa jacayl jiri kara mid ka mid ah waayo waxaa laga yaabaa 200,000 oo sababood inay jiraan laga yaabo qof kale u guursado laakiin kaas mid ka mid ah Maryam ka dhawaajisay